nabi maxamed baa gaalnimada naga soo saaray ilaahay baa u diray inuu gaalnimada naga soo saaro wuuna naga soo saaray الله جعلك جاوي جيفك يا أنعو جاهك شرفت ليا هرجوك صداو كل جوك عمرنك بجسني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على دربه إلى يوم الدين سلامينا أحبابت مجلس كدما سو حاضرتي أو سو حاضرتي إني كفائديستان وحيالها خيرك وكسعد مجلسك خاصة أمين كان جمعة صلق حبيبك أن عليه الصلاة والسلام inay salligiisa badiyaan oo waqti u helaan ammaantiisa ay ku macaansadaan adinkana waan kaga mahad celinaynaa waxaa caaway nala jooga oo majliska caaway noogu martiya oo rabnaa kelimadiisa qayimka معناها وين حنبارسان عن كل جيسنا شيخ النوينا عالم كها شيخ المشايخ شيخ محمود شيخ محمد يري المعروف شيخ محمود ديري نوغي من الدوان ودنكي صوماليا شيخ أيان تنبوحو جوغي مقالة نيروبي caawi waxaan nasiib u yeelanay inuu noogu yimaado sheekhu xaruntan baytul ashaacira ama xadratul muhammadiyah sidii hadda akhwaanku u yaqaanaan insha Allah taala caawi sheekha waxaan ka dhageysan doonaa kelimo ku saabsan maxabada jaanibka xabiibkeena calayhi salaatu wasalaam iyo maxaa laga helaa madxiga amaanta nabigeena calayhi salaatu wasalaam shayga marka taqaanid qaymaha uu leeyahay iyo qaymaha uu kugu fadhiyo ayaad ku bixisaa juhdi iyo dadaal aad u fara badan way dhacdaa marka hadaadan ogoon shayga muhiimada iyo qaymaha uu leeyahay inuusan waqti badan ka qaadanaynin marka sheekheena hadii alla idmo kelimadeena waxay noqon doontaa insha Allah taala maxaa laga helaa مدحك حبيبك أن عليه الصلاة والسلام فليتفضل شيخنا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وبارك وعظم ومجد وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام البررة وعلينا معهم برحمته تعالى وببركتهم وبعده يقول الله جل ذكره قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق رب العرش العظيم إلهي بأما هذا دمان إسكاله إنه نسيي نعموين أن نتركوبي كرينين وغاية أن نقايدو ذا قران كريم بإلهيكم مع سنيها ونقام علينا هذا مقام كاس كلمة أسكوها بانان لهيد أنا هذا ميه لكن هدي لي يريه أخوانكم وحيون اسكده وحوين إن وحيره هذا وأكو خصمان هاي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قيمة هي قدر كالجهل إلهي اكتس قدر كي قيمة وكليه هاي
amba jeclaanta la jeclaado waxa lagu helayo waxaa si dhaba u garan kara ciddii si dhaba u jecel annagoo marka dhalanteed ay nagu tahay iyo sheegsheeg ay nagu tahay inaynu annabi moxamed sallallahu calayhi wasalam sheegitaankiisa iska barakaysanayno oonan ka maarmi karin ma ogiye wuu ka sharaf badan yahay carabkanaga wax lagu sheego nebi moxamed sallallahu calayhi wasalam ilaahay qiimaha caalamka dhanba iska lahaayoo maaliku kulli shay-in ahaabaa nebiga qadarkiisa iyo qiimaha uu leeyahay ilaah wax ka muujinaya cid marka gaari karta qadarkiisa iyo qiimihiisa tilmaami karta lama helayo ilaahay ka soo hartay marka koowaad bal fiiriyo in markii a'imadii islaamku nin walba hiba nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu ka garanayay markuu ku tilmaamay oo intuu gaari kara nin walba tilmaamay haddana wuu cudur daarto nin walba hiba wuxuu yidhi waxba kama gaarin oo wixii aan sheegay oo nebiga ka sheegay qadarkiisa wax cunaan ma maaha imaamkii qaaliga ahayo sheekh yuusuf ibn ismaaciil annabhaani markuu rasuulullaahi moxamed sallallahu calayhi wasalam kun beyd ku ammaanay qasiido kun beyd ka kooban daybatulqara kitaabka la yidhaahdo markuu nebiga ku ammaanay buu meesha gabagabadii wuxuu yidhi waxaas nebi moxamed sallallahu calayhi wasalam aan ku soo tilmaamay oo qasiidadaahoo 1000 beytin kun beyd haddana ah oo weliba aan ka buuxiyey abkaaru quri macaani wada cusub oo sida gabdhac yaryaro cusub oo bakaarooyina camal oo kale ah anoo ka soo buuxiyey ay haystana nebi moxamed sallallahu calayhi wasalam qadarkiisii aysan waxba ka ahayn oo waxaan la mid ahay yiri markaa nebi moxamed intaa ku soo tilmaamay tilmaantaydu la too tahay qur-aanyo yar hadda qur-aanyo ogow oo maalin aan joogina hameen joogta oo haddana indha habeeno leh qur-aanyo oo siday u yartahay la ogyahay oo aan maalin joogina hameen joogta haddana mid indhaheedu marka horeba fiicnaayeen aan ahayn cashwa mid indha habeeno la ah ee tiraahda cashur raxmaan tilmaamaya intay ka garan karto qur-aanyadaas hameenka joogta ee indha habeenaha leh cashur raxmaan intay ka garan karto unbaa nebi moxamed ka garan kara uu yidhi sallallahu calayhi wasalam waa cajzi dhammaystirane ogow wax ay ka garan karto qur-aanyadaasi cirkoo ka sokeeyaysanba u jeedinba mar haddii iyo walba waa yareed waa indha yareed haddana waa hameenay joogtaa indha habeenay leedahay waxbaba ma aragtaba saasoo kale sidaynan carshiga cashuraxmaan waxba uga arki karayn oynan qadarkiisa u ixaadayn karaynan baa rasuulullaahi moxamed sallallahu calayhi wasalam inaguna sidaasoo kale unbaan alla la mid ahay yidhi intay qur-aanyadaasi ka tilmaami karta carshuraxmaana nebi maxamed ka tilmaami karaa sidaa marka imaamku leeyahay runtiis weeye oo dhabtoo cabiray ee tawaaduc keliya ma ahan waxaa ilaahay nebi maxamed ku tilmaamayaa inaan cid isaga ka soo hartay oo qadarkiisa gaari soo ixaadayn karta inaynan jirin waxa u cunanma iyo wuxuu astaahilay iyo qiimihiisa allah mooye cid kaleeto oo tira koobi karta inaynan jirin ilaahay baba na barayaba dad oon waxba fahminoo doqomaha waxay dhihi doonaan quluwi ay sameeyeen oo dadkaasi waxbaynanba fahmina bal qur-aanka dib ugu noqo oo ilaahay wuxuu leeyahay waanzala allahu calayka alkitaaba walxikmata wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullaahi calayka cadiima fadliga nebi moxamed oo aan ku siinay inta kaleo dhan xagga u kaadiya fadliga aan ku siinay waa weyn yahay baa ilaahay leeyahay aayad kalena ilaah wuxuu ku leeyahay ilaa raxmatan min rabbik ina fadlahu kaana calayka kabiira aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay wa inaka lacalaa khuluqin cadiim ilaahay nebi moxamed sallallahu calayhi wasalama dabeecadiisu cadiim buu ku tilmaamay fadliga ilaahay siiyey oo alla siiyey cadiim baa alla ku tilmaamay raxmadda ilaahay uu siiyey kabiir baa alla ku tilmaamay ma dhihin rabbi markuu tilmaamayay waxa aan ku siiyey cirkay la egyihiin ma dhihin carshigay la egyihiin ma dhihin jannadiiyo naartay la egyihiin wuxuu yidhi waa cadiim ilaahay shayga uu cadiim ku tilmaamayna waxaa garan kara cadamadaasi intay la eg tahay ciddii ilaahay mujaanis u ah haddayba jirtaba ma la helaya ilaahay wax u mujaanisay ogow
hadduunan ilaahay mujaanis lahayn keligiisa yaqaan nabiga qadarkiisa cid kaloo taqaana la heli maayo waxaynu ognahay inagu naqaanaa mid inaga naga midii wixii weynaan uu ku tilmaamo inta kale la suuraysan karta wixii quruxuu ku tilmaamo waa la garan karnaa wuxuu caraf ku tilmaamo wuxuu macaan ku tilmaamo se weynu la naqaan wuxuu tilmaamayaa la naqaan macaankan la naqaan weynaantan la naqaan quruxda carafta qof walba qofka mujaaniskiisa shayga uu cadamo ku sheego inta cadamadaasi la egta waa caraf weyn waa qurux weyn waa macaan weyn wixii qofkaani tilmaamay ciddii mujaanisiyo way la garan kartaa ilaahay mujaanis ma leh rabbi wax u mujaanisa lama arko hadduunan ilaahay mujaanis lahayn cadamadaasi intay la eg tahay ilaahay keliyaha yaqaan nabiga fadliga alla siiyey raxmadda alla uu siiyey dabeecadda alla uu siiyey ilaahay keliyaha yaqaane laa jinnun walaa insun walaa malakun walaa nebiyun cid ilaah ka soo hartay oo garanaysa ma jirto inay sidaa tahay mar kale aad markhaati kale u raadsanno ilaahay jannadii buu noo tilmaamay waxay tahay way carfoon tahay way waasic waa macaan tahay wax walbo wasfiyahoo aan ku garan karna ilaahay noogu sheegay tilmaan walba oo aan fahmi karna markuu ilaahay noo sheegay oo uu yidhi waa weyn tahay carduha samaawaatu walardu ama carduha aayaddii kale ka cardi samaa'i walard carafteeda wax walba nebigu iyo ilaahay ka tilmaameen wax walboo dhan markii lalakaga tilmaamay ilaahay muxuu qur-aanka ku sheegay mu'miniintu inay leeyihiin lahum makfiratun wa ajrun cadiim ilaahay mu'miniinta muxuu siiyey acadallaahu lahum makfiratan wa ajran cadiima ajri cadiimaha ilaahay mu'miniinta siinayaa maalinta qiyaamo u diyaariyey dee waana ilaahay jannadiisa weeye ogow jannadaas ilaahay cadiim baa ilaahay ku tilmaamay inta tilmaan annagu aan garan karno oo dhan inta jannadu ciri dhul waa ka weyntahay carduha samaawaatu walardu markana la leeyahay wax annagu aan aragno oo aan fahmayna ciriya dhul noola weyihiin ciriya dhul way ka weyntahay si waa taqriiban lilafahmi waxa ciriya dhul loogu miisaaliyo ciriya dhul ay la eg tahay loo leeyahay waa ka weyntahay wax ka weynaanan arkin jannadii markuu ilaahay si walba noogu tilmaamay inay cadiimtaana uu tilmaamay ilaahay haddana wuxuu nagu cajisi gelinayaa jannadaasi cid soo aragtay ma ahane cid kaleeto inaynan garan karayninba tilmaan kastoo laga siiyo maadaama ilaahay cadiim uu ku tilmaamay waana laka cajisi geliyo xadiidkii xadiidulqudsiga ahayoo bukhaari iyo muslim iyo keyrkood wariyeen ilaahay wuxuu ku leeyahay acdadtu licibaadi asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar dukhran bal hamaa udlictum calayhi fiiriyo ilaahay markuu jannadii si walba noogu tilmaamo rasuulku si walba noogu tilmaamay cadiim cadamadeedu intay la egtahana la cajsi gelinayaahoo ilaahay wuxuu yidhi waxaan addoommahayga fiican u diyaariyey janno oo ma la caynu ra'at wax aan baddadii arkinba meeshaasoo kale xadiidka waxaa la yidhaahdaa waa mufiide macnaha meesha mudaafaa ka go-an maa laa caynu basharin ra'at waay qaybta dambaa basharku ku jira halkaana waa u qadaranta waxaan dad ishoodu aynan arkin walaa udunu samicat udunu basharin samicat dad bani aadam dhegtooduna aynan maqal walaa khatara calaa qalbi basharin aan dad qalbigooduna suuraysan karaynin waa tacjiiskii ugu dambeeye fiiri jannadu si kastood weynaanteeda suuraysata ka weyno intaas suuraysan karto waaba kasii weyntaa ilaahay qur-aan iyo xadiidulqudsigaas noogu leeyay saxiixa meeshaas marka waxaan ka rabaa nuxurkiiyo ujeedada aan rabaa ay tahay shayga ilaahay cadiim uu ku tilmaamo inta cadamadu la egtahay isaga unbaa yaqaana cid kaloo la taqaan lama arko jannadii markuu ilaahay cadiim ku sheegay haddana wuxuu yidhi intaad suuraysan kartaan oo dhan way kasii fiican tahay waa ka macaan tahay waa ka qurxoon tahay waa ka carfoon tahay waa ka waasicsan tahay marka shayga anag ilaahay cadiim uu ku tilmaamo cid ilaahay aan ahaynoo cadamadaasi intay la eg tahay inaynan la helayninba marka xadiidkan iyo aayadihii horeeto markaad isku soo ururisa kuu soo baxaysa
cid kastoo nebi moxamed waqtigiisoo dhan qofkii ammaantiisa daldalayo wax kale aan qabanine waqtigiisoo dhan ku dhammeeya nebi moxamed ammaantiisa ma gaari karayo mustawihii qadarkii uu cunanmay nebiga ma gaari karo saa ilaahay wuxuu siiyeeyaa intaan garan karna ka weyn